bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waxaa jira dad inaga mid ah oo la saaxiibo wanaagsan qaar dadka kale uga dhow iyo kuwa kaalmo kala duwan kaga jira noloshooda balse waxaa laga yaabaa qaar inaga mid ahi inaanay aqoon kuwa dhabta ah iyo kuwa dhalanteedka ah su'aashaydu waxa weeye haddaba sideed u kala garan kartaa noocyada aynu soo sheegnay dabcan waxay leeyihiin astaamo lagu kala garan karo iyo dabeecado ay kugu kala cadaanayaan saaxiibada daacadda ah iyo kuwa danaysiga kugula socda saaxiibka dhabta ah iyo ka dhuuniga ah saaxiibka nafta iyo saaxiibka naar afuufka haddaba kuwani waa qaar ka mid ah calaamadaha lagu garto saaxiibka beenta ah ee kuu muujinaya inuu yahay saaxiib wanaagsan markastana noloshaada ugu jira inuu kugu dangaadho ama doonaya inuu dhaqdhaqaaqaaga la socdo si uu lugta kuu qabto libintaadana ula dagaalamo haddaba caawa barnaamijkeenu mawduucaas ayuu daaran yahay waxaana aynu mid isu dul taagi doonaa astaamaha saaxiiblamoodka cadowgaaga qarsoon ee dhoola cadaynta kugula socda ku soo dhawaada calaamadda koowaad waa saaxiib danaysta ah oo dantiisa uun fiirsada mar walba mid ka mid ah dabeecadaha uu leeyahay saaxiibka aan dhabta ahayni waa in ujeeddada uu kula socdaa ay tahay keliya inuu dantiisa kaa fushado inuu kugu qabo dan weyn sida inuu gaadhigaaga isticmaalo inuu jeebkaaga kula isticmaalo inuu mushkiladiisa kuu sheego mar walba iyo inuu isaga kaa dhigo saaxiib wanaagsan oo uu ku dadaalayo inaana dareemin waxa u qarsoon iyo danta uu kaa leeyahay midna waxay noqon kartaa inuu dhaqaale ahaan kuugu danaysto ama uu ka faa'iideysto aqoontaada cilmigaaga maskaxdaada xooggaaga iyo wixii la mid ah haddaba isha mari dhammaan saaxiiblamoodka noloshaada ku jira ee kuu qarsoon ee dan ay leeyihiin kugula socda haddii aad ku aragto astaamaha aynu soo sheegnay qaar ka mid ah oo uu leeyahay waa inaad go'aan degdega ka gaadhaa saaxiibkaas waayo ma aha saaxiibkuu daneeye ah ee waa kaa danayste kugu danayste aan daacad ahayn calaamadda labaad ma ilaaliyo sirtaada saaxiibka dhabta ahi waa ka dhowra ilaaliya qariya xafida dadka kale ka jira meelaha aad ku liidato iyo dhammaan goldaloolooyinkaaga iyo ceebahaagaba waa kaad kaga gamaado sir kasta iyo wax kasta oo liidashadaada ka mid ah oo uu og yahay laakiin saaxiibka beenta ah lagama yaabo inuu sirtaada qariyo ama ceeb yaroo aad leedahay asturo waa ka meel kasta kaga faana hebel ama heblaayo waxaasaan taray oo ku caawiyey waxaasaan u qabtay waa mid noocaasa iyo hadallo kale oo la mid ah lagama yaabo dhaliil yaroo aad leedahay inuu daboolo ama dado meel aad ku liidato wuxuu caan ku yahay in qofkii kula soo hadal qaadaba uu arrimahaaga kala hadlo oo laga dareemo inuu ku raaxaysanayo wax ka sheegistaada sidaa darteed haddii aad aragto sirtaada oo bannaanka taalla ama arrimaha aad ku aamintay dad aad u taqaano saaxiibada waxa faafiyey mid ka mid ah saaxiibada been abuurka ah ee noloshaada ku jira ee ogow calaamadda saddexaad waxaad aragtaa marka uu garabkaa rabo oo keliya saaxiibada xumxumi waxay caan ku yihiin in marka ay murugaysan yihiin ama dhib gaar ah haystaan ay adiga kuu sheegtaan wax walba si ay kuugu nafisaan balse waxaa cajiiba markaad adigu u baahan tahay arki maysid xataa haddii aad raadiso waxay iska dhigayaan qaar mashquulsan oo howlo muhiima gacanta ku haya si kastaad ula xidhiidhana lagama yaabo inaad maalinta aragto waxa caado u ah maalintaad hawl ka leedahay inaad weydo maalinta arrin kugu timaado inaad garabkaaga ka weydo waana astaamaha saxda ah ee lagu garto dhammaantood ee ay wadaagaan way kaa dhuumanayaan saaxiibadaada beenta ahi maalintaas balse waxaa dhibkaas kula qaybsanaya marxaladaasna kaala gudbaya isagoon ku dhibsanayn oo u arkaya waxaanuu kuu qabanayo inay waajibkiisa tahay saaxiibkaaga dhabta ah oo keliya sidaa darteed kala shaandhee saaxiibada aad aragto iyagoo kula jooga xilliga ay adiga kuu baahan yihiin oo keliya iyo saaxiibada xilli kasta noloshaada ku jira ee aan agtaada laga waayin xilli kasta iyo xaalad kastaba calaamadda afaraad waxay kugu qasbaan fikradooda iyo waxay aaminsan yihiin iyagu saaxiibka beenta ahi wuxuu mar walba jecel yahay inuu kugu qasbo fikradiisa inuu kaa dhaadhiciyo waxa uu isagu jecel yahay waxaana uu kugu cadaadiyaa sidii aad ku aamini lahayd fikradiisa haddiise aad ka diido ama aad dhahdo waxani waa khalad wuxuu samaynayaa inuu kuu cadhoodo ama uu cidlo afka ka taago
haddii idinka oo badan oo asxaaba aad ka tashanaysaan tallaabo la qaadayo, tusaale ahaan meel la aadi rabo ama wax la samayn rabo sida in dalxiis aad u baxaysaan oo kale, waxa uu kugu cadaadinayaa inaad taladiisa oo kaliya qaadatid oo wuxuu aad isugu dayayaa inuu kaa xigsado dhammaan asxaabtaada kale. lagama yaabo inuu marnaba qadariyo waxaad adigu ku fakaraysid ama uu tixgeliyo dareenkaaga shakhsiyadeed iyo sida aad wax u rabto, kaliya waxa u muuqda waxa uu isagu doonayo. haddii aad ku gacan saydhana wuu ismadoobaynayaa oo maba kuu oggola inaad taada raacdo. calaamadda shanaad, wuxuu markasta qariyaa libtaada ama waxtarkaaga. saaxiibka noocan ahi wuxuu aad u neceb yahay inay dadku ogaadaan waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay, oo waa mid markasta qariya libtaada, wanaagaaga iyo kartidaadaba. wuxuu markasta kugula jiraa dagaal hoose oo ah inuu hoos kuu dhigo ama uu xaqiro shakhsiyadaada iyo waxtarkaagaba. kan oo kale waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay xaasid, makhruuq, jelas iyo wixii la halmaala. muxuu yahay ereyga saaxiib ama rafiiq? micno ahaan iyo masab ahaanba nolosha kaalin muhiim ah ayuu kaga jiraa. haddii noloshaada aad ku beeganto saaxiib sifooyinkan leh, haddana saaxiib aad ka dhiganayso oo tale iyo garab istaagba ka filayso, oo aad moodayso inuu wanaagaaga iyo wax ahaanshahaaga jecel yahay, naftaada la fadhiiso oo runta u sheeg. maanta laga bilaabana ku dadaal sidaad isaga fogeyn lahayd qofka noocaasa ee aad noloshaada uga saari lahayd. haddaba saaxiib walba oo noloshaada ku jira maanta laga bilaabo, haddaad ku aragto 5 calaamadood ilgaara ku hay, sababtoo ah waa saaxiib been abuura oo aan ku anfacayn adiga haba yaraatee. haddii aad haysato saaxiib wanaagsan oo noloshaada kaalin muhiima kaga jira, oo ku dhisa, ku dhiirigeliya, hiil iyo hooba kula garab taagan, meesha uu kaaga beegan yahay aan nacab kaaga soo dhici karin, ilaasho oo Ilaahay ugu mahadnaq inaad haysato qofka noocaasa. haddii aanad haysan wax saaxiib ahna, hambalyo, noloshaada hore u sii wado, waayo saaxiibka ugu wanaagsan ee aad haysataa waa naftaada. haddii aad iyada la saaxiibtana kaalin kale uma baahanaysid nolosha. gabagabadii, noloshaada ma ku jiraa saaxiib leh calaamadaha aan soo sheegnay? mase haysataa saaxiib dhaba, mise waxaad tahay keli socodaan jeclayn inuu yeesho wax saaxiiba? nagula wadaag qaybta commentiska. aad ba u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum.